waxa lagu galay xangeeyada iyo maatadeeda ee lagu laayay ragga lagu laayay ee meydkoodu 8 burca u yaallo ee gobolka Togdheer isu daba marayana waxay uga daleeyay iyaga ka jawaabi lamana xukumaan shanta nabadgelyada afka saaraya isku reerkaay iyo kana jeebka ku sitaan nafaqo oo jeebka lagu sitaa waxaan leenahay askari dambe oo halkaas soo mari doona iyo dawlad dambe oo wadada soo mari doonto guri Ciise Muuse degay ay soo mari doonana ma jiri doono horta de waxba kama kala qarsoona waxa laga wada hadlaayo goobtaan taaganahayna waa magaaladii Waaba waan ma huriyo qod bay yeelatay gobolka Togdheer oo bal isweydiiya koob iyo konton magaalada ka dambeeyay wuxuu galbadaha laga sheekay gobolka Togdheer dib ay soo weydiiyay horta afartan magaalo saacay nafaqo intuu ina kaamarna xidhay mar barkada kaasay miyaanu qajilayn miyaanu fikrad lahayn miyaanu dib u xisaabtamay shanta nabadgelyadu taas waa qodobka labaad waxa lagu galay xangeeyada iyo maatadeeda ee lagu laayay ragga lagu laayay ee meydkoodu 8 burca u yaallo ee gobolka Togdheer isu daba marayana waxay uga daleeyay iyaga ka jawaabi looma qorilaa looma xoogla looma dhalinyaro la taana war ka jawaabi doona hadan wanaag lagu dhamay qodobka saddexaad dhowr iyo 10 kooda ee gudida ay awal bariya taagan gobolka Togdheer halka ay dhigaan ayuu baan sugana kula raacsanay lamana xukumaan shanta nabadgelyada afka saaraya isku reerkaay iyo kana jeebka ku sitaan nafaqo oo jeebka lagu sitaa hadaan jeebka lagu sidanin afar goorina gobcadla kama aaseen waa ma saxeen iyo magaalo meel laga sameeyo waxaan leenahay askari dambe oo halkaas soo mari doona iyo dawlad dambe oo wadada soo mari doonto guri Ciise Muuse degay ay soo mari doonana ma jiri doono hadaan sulaadidayada iyo madaxdayada iyo odayaashayda aanay hogaamin ninka madaxdayada iyo sulaadidayada iyo odayaashayda hogaaminayaan ma soo maraya nin kale oo soo maraya ma jiro maadaama meydkaygu 8 gobolka Togdheer yaalo barqadii bay ahayd goorta ninka la dilay goorta la soo galiyay waa loogi dadka dilay waa ognahay bari baa loogu qayraa tagay oo lagu afray oo la iska joogo habeenkii lagu hayay taasina dalka wax ka dhacay iyo wax ka sheekay karo midna ma aha waxa weeyaan gobolkaasi lama xukumo cid ka soo baxday lama xukunto askari ba arki karto waxa ogtiiro oo miidhan oo birisa waraaqa iyo saad baladii keen waxa alla wixii marka awal ba sheegta ay lahaayeen ee burcaba ka soo dambeeya meel la hirgeliyo la yeelay inaan jirin waayahay oo la iska diiday wixii kalena la dayactiray oo ay maanta ay dhayihiin haddii la isku asaraaro de wala sheegi doonaa labada meelood laga soo diray koob doona taasina waa wax dhacay waxay ku dhacday waa laga warrami doonaa nimanka loo qabto xilka ee la yiri waa 12 nin halka wax mariyaan ayaan ogol waana taageerina meesha aan maanta ka hadlayna waxa weeye waabahu haddii ay intii imika ka horeysay ay gabanayeen ama laga baqanayay gaariga guuxiisa maanta boolis baanaan ka baqanayn cid kalaanaan ka baqanayn imikaanu hawshii gacanta ku haynaa ciddii ay wax kaga jirtaa qoray ku dhawaaqay ansixiyey wixii aan ahayn gobolka Togdheer imika cid hoos soo diro waanu wadaynaa sidii lagu ansixiyey waanu ku shaqaynaynaa wixii noogu yimaadana way iska celinaynaa halka meexangeeyada la tagay soo ninkii aan waxba lagu lahayn la soo maxbuus gareeyo katinad lagu soo dhuftay waxa la geeyay balliga la aasayay waligeedna lama arag laba qolona leedahay balliga naga aasa qolona leedahay waara naga ale balliga intay reerkii balliga lahaa naga aasa intay u tagto oo ay soo qaado waanu idilaalinaynaa aasa balliga dawlad tiraada waligeed ma arag kuwii la macahay la midka aha waa magaalooyin maanta waa tii la saxay laga saxay wasiiradu saxeen kuwii maalinta lala saxay maanta waa magaalooyin laga duulaa waxa hor taagan oo waxaan ugu wacana waxa weeye gobolka Togdheer uu ka madax yahay inaan nafaqo waxaanu leenahay
kaasoo meel looga kaxeeye mooyaane waxaan u malaynayaa inaan intani waxba ka hagaagaynin gobolka togdheer waxaannu taageersannahay 12 guddida ay qabsaday reerku ee diiday inay gobolka kala xaajoodaan ninkaa dilkaa dhammaanta dhacay ilaa iyo ay dawladda dhexe timaado oo wasiirka arrimaha gudaha yimaadaan iyo dadka qusaysa kala xaajoon maynaan anugu leenahay gobolka togdheer dadka jooga maaha dad cadaalad ku jirto ama ka shaqaynaya